muqdisho waxay u diyaar garoobaysaa mar kale dhammaystirka hanaanka doorashooyinka Soomaaliya kulan lagu qabanayo maalinta berita ah kaas oo ay saacada naga xigaan kana qayb galayaan madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada maalmo wada hadallo gaar iyo kuwa toos ah ay yeesheen dhinacyada siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda dawlad goboleedyada ugu dambeyntii waxaa soo bixi doona heshiis doorasho oo dhammaan dhinacyadu ay isku raacsan yihiin waa qabyatirka heshiiskii 17 Sebtembar iyo eebyadii heshiiskii ama is-afgaradkii Baydhaba ee dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaalidu ay ku gaareen hadda waxaa la wajahayaa marxalad kale oo siyaasadeed qodobada ugu waaweyn ee war-saxaafadeedka ama warmurtiyeedka ugu dambeyn la soo saari doona saacadaha kadib waxa uu noqon doonaa nuxurhaantiisa mid aan wax badan ka duwanayn gabi ahaanba heshiisyadii hore sida muuqata ama ay caddaynayaan ilo xoogaalihi waxa ay noo xaqiijeen is-afgaradkii Baydhaba iyo gundhiga heshiiskii doorasho ee 17 Sebtembar dhammaan dhinacyadu iskuma diidana hadda marxaladaha kala duwan ee dalka laakiin aragtida siyaasiga ah ayay aad isugu qabteen madaxda dawlad goboleedyada qaarkood iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya hadda waxaa la aadayaa maalmo kale oo doorasho saxiixa kadibna waxaa la filayaa in qof kasta ama dhinac kasta oo dawlad goboleedka ee dawladda federaalku ay fuliyaan dhammaan heshiisyada dhinacyadu ay kala saxiidaan wakiilada caalamiga midowga musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo madaxda dawladda federaalka ee dawlad goboleedyadu waxa ay jeedin doonaan hadal wadajir ah oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo heshiiska la gaaray dhinac kasta hadda waxaa ka go'an fulinta dhammaan heshiisyada maadaama muddo 8 bilood ka badan dhinacyadu ay jid dheer soo dhex maray kaasoo ku saabsanaa xaaladda doorashooyinka gaarsiiyeyna in siyaasadda Soomaaliya ay meel halis badan gaarto dadka Soomaalidu si weyn ayay indhaha ugu hayaan kulamada siyaasadeed ee la filayo waxayna naawilayaan rajo wanaagsan iyo naacaw siyaasadeed oo dalka u horseeda ifafaalo wanaagsan waxa kale oo la geli doonaa ayaamo kale oo lagu diriri doono soo xulidda ergooyinka dawlad goboleedyadu waxa ay bilaabi doonaan inay boobaan kuraasta xildhibaanada sida la rumaysan yahayna halkaas ayuu ka bilaaban doonaa dagaalka gudaha oo dhinacyadu aysan wax badan iskula hari doonin madaxda dawlad goboleedyada qaarkood waxa ay dadaal badan geli doonaan sida ay u soo saari lahayn xildhibaano iyaga uun ka amar qaata laakiin soo bixidda xildhibaanka kadib dadka Soomaalidu si weyn ayay indhaha ugu haynayaan hanaanka doorashooyinka beesha caalamka ayaa la filayaa inay bixiso malaayiin dollar oo ku saabsan qabashada doorashooyinka madaxtinimada ee Soomaaliya dhinaca kalena siyaasiyiinta musharaxiinta ee muddo isku duubnaa hadda gudahooda ayuu u bilaaban doonaa maalmo tirsiga loolanka doorashada ma jiri doonaan isu tanaasul dhexdooda ah taas beddelkeedana waxa ay dhammaan wajihi doonaan nin kasta iyo taagtiis iyo sida uu u dagaalamo shirkadda Xaaji Alison Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa sonkorta bariiska iyo galleyda dharka isbarbaarka bajaajyada dawooyinka wuxuu faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda